wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA-da. Waxaa barnaamijka toddobaadkan aynu ku eegi doonaa xiisadda dagaal ee magaalada Kismaayo oo ay dad badani ku leedeen sida xal looga gaari karo. Waxaa barnaamijka marti noogu ah oo su'aalaha uga jawaabaya aniga iyo dhegaystayaashaba Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. waaye Professor Maxamed Cumar Dalxa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ku soo dhawow ugu horeyntii gaar waa dhawahay idinko mahadsan waayahay bal waxaad ka warantaa xogta aad ka helayso dhibaatada ka jirta magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose dagaal ay ka dhacayeen iyadoo bariyahanba siyaasadda isdiidan ay dhexmarayeen ku loolamayay dhinaca Jubbaland hoggaankeeda haddana wixii muran iyo wixii doodi ka taagnaataba inay shalay gacan ka hadal u dhexmaray maaragtay hogaamiyayaashii halkaasi waana nasiib daro runtii wax aada looga xumaada ah oo horeyba cabsida maaragtay jirtay sida ay wax u socdeen maaragtay dadka dareenkaasi awalba maaragtay la qabay marka waa arrin runtii mar kale aanan yacni lagu farxi karin iyadoo Kismaayana ay ka soo daashay dagaal iyo dadka ku noolba in haddana mar kale ay lugaha la gasho dagaal sokeeye oo cadow mooyaan inuu ka faa'iideysto Soomaaliya aan dan ugu jirin waayahay Professor Maxamed Cumar Dalxa dhinaca kale haddii la eego dagaaladani waxay imaanayaan waqti dadka Soomaaliyeed ee jooga qurba joogta ama meelaha kala duwan ee caalamka ay niyadda u sheegayeen horumar Soomaaliya oo dhinaca amniga iyo xasiloonida ah marka maxay saameena oo ay ku keeni karaan geedi socodkii nabadda iyo hanaankii dhinaca amniga iyo xasiloonida horey loo qaaday runtii way saameynaysaa Soomaalida ama gudaha ha joogaan ama dibadda maxaa yeelay Kismaayo waxay qayb ka tahay iyo jubbooyinka marka la isku yiraahdo dalweynaha Soomaaliyeed meelaha maanta nuxur kale haddii loo fiiriyo dhinac siyaasad iyo dhaqaale iyo amni iyo bulshaba yani ayan dalweynaha Soomaaliyeed marna ma aragtay sina aanan oga harayn haddii dhibaatadeeda iyada ay sii socoto maxaa yeelay Soomaalidu waa un hal ma aragtay jir isku yaala jirkan hadda sida diintaba ay qabto haddii far ay ku xanuunto ogadaada inteeda kale iyadana way u xanuunsanaysaa marka maadaama caasimadii saddexaad ee weliba dalka iyada ay ku tilmaameed geographicalina meesha iyada ay dhacayso iyo maaday kheyraadka ilaahay siiyey dadka deegaankaasi maanta ku nool ka sokow Soomaali maaragtay sida iyada ay u tahay ilaha maaragtay dhaqaale iyada ay ku faanto ama wax soo saar ha noqdo ama ha noqoto dalxiis ama ha noqoto maaragtay xeebta ballaaran iyo ay leedahay marka wax ummad Soomaaliyeed u ahaa kanzi waxa loo yaqaano ama kayd u ahaa ayaa waxa soo gaaraya mar kale dhibaato oo burburkii dib u celinaysa 20 sano oo square one ku celin doonto haddii aanan caqliga uusan shaqeyn dadka Soomaaliyeed ee meesha ku noolna iyagana aanan u fakirin si maaragtay Soomaalinimo ayagoo dadka laakiin inta fara badan aanu aaneynayna inay noqon karaan dadka danta gaarka kaliya kalaha ummadaasi bariyaha ayaga walaaqay iyo gacmaha faraha badan Kismaayo iskugu tagay oo ayaga ay sabab u noqon doonaan haddii Kismaayo maanta ay kusii socoto sidasan ama dagaaladoodii iyaga ay sii ballaadhaan oo ay maaragtay meelihii kale looga baqayo iyagana inay ku fidaan maaragtay ama ha noqoto maaragtay mid gaashaan buraysi ku timaado ama mid maaragtay isu habarwaacasho sidii lagu bartay ee isu bedesho nidaam kale oo aan runtii loo malaynayo in laga soo gudbay waayahay xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa khadka telefoonka waxaa ku jira mid ka mid ah dhageystayaasha laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA-da walaal soo dhawow magacaaga ku bilow halkaad naga soo waceysiyo waxaad jeclaan lahayd inaad weydiisid Professor Dalxa waad maasan tahay wariye Saare Cabdi Axmed waxaan ka soo hadlayaa orda wadanka Koonfur Afrika gaar ahaan magaalada Johannesburg magaceygana waa Ashir Daahir Cabdi waxaan su'aasha aan weydiinayo professorku waxa ay tahay maanta shalay waxa ka dhacay magaalada Kismaayo sida aan warbaahinada aan telefoonada ku maqleyno aan iideeday wax walba ku ogaanayno inuu dagaalo ba'an uu ka dhacay dagaaladaasna isaga hor imaadeen qabaa'iladii shalay wada joogay magaalada Kismaayo midba uu sheeganayo inuu madaxweyne yahay dawladdiina ay ka gaabisay arrintaasi in ay xal u hesho sidee xal ugu heli kartaa dawladda ku meel gaarka ma ciidan ayay u diri kartaa ma waxay
u qaban karto dadka reer Kismaayo oo muddada 22 sano ay soo daashadeen dhibaatada ee dagaalada sokeeye professorku su'aasheedu waxay tahay maxay tahay siyaasadda kaga aadan dawladdu ay u heli karto inay ka qabato gobolada Jubbooyinka inta ay weydiinayaan taasaan kaga baxsano aad baad u mahadsantahay Abshir haye professor waa mahadsan yahay walaalkayga Koonfur Afrika ka soo hadlaya waan salaamayaa Soomaalidu waxay tiraahdaa biyo ka badan iyo dad ka badan labadaba way ku boobaan Kismaayo dadkii asaliga ahaa ee ku noolaa oo ayaga walaalaha ahaa ayagoo aanan isdiidanayn hadday maamul samaystaan iyo haddii ayaga runtii qofkii marka ay u arkaan inay hormood ka dhigtaan wax problem oo aanan meesha maaragtay laga filayn ayaa waxaa qarqiyey oo ama buux dhaafiyey Kismaayo dad fara badan oo siyaabo kala duwan meeshaasi ugu lug yeeshay oo siyaasiyiin leh oo ganacsato leh oo ragga qaarkood laftirkooda aqoon-yahan iyo qurba joog oo ayagana aan ka madnayn waxayna sabab u noqdeen inay bilaabaan siyaasad oo tii hore oo la filayay inay maaragtay gobolkaasi dadkii ku noolaa inay nidaam ku samaystaan wax ka duwan taana markii meesha timid ayaa waxay dawladdii iyo haddii xataa ay tahay amisoomtii meesha joogtay oo ciidamada Kenya hadday yihiin ama ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed ee meesha joogay ee dawladdu iyaga ka amar qaadanayay ama raggii kale iyagana markii hore qaab maaragtay ciidameed oo madax banaan iyagana ku dhisnaa oo gobolkaasi iyagana mar waliba iyagana qayb ka ahaa intaba waxay wada noqdeen runtii dad isugu yimid meeshaasi inay kulligooda hadafkii meeshaasi laga lahaa in nabadda lagu bahoobo xoogagii markaasi markii horena looga dhiganayay marmarsiyo in lagula dirarayo oo dawladda dadkii kasoo horjeeday ay ahaayeen waxaa arrintaasi bedeshay rabitaan nin walba isaga inuu kursiga Jubbaland madax loogu noqonayo inuu asiga lugaha uu ku fidsado sidaana maaragtay rabitaankiisa hadduu shaqayn waayane wixii hadda la filayay iyo wax kasii daran inay meeshii kasoo baxaan oo hal maaragtay maamul keliya inay 5-6 qofood qolo waliba meel intay kaga dhawaaqdo ay tiraahdo aniga aan ninkii sax ahaa marka dawladdiina inay midna la safato midna ay ka safato nidaam ahaan iyo qaanuun ahaan iyo maaragtay Soomaalinimo ahaanba kuma habboona dawga keliya marka in ayagii la isu keeno oo sidii beriyii oo kale maaragtay wixii xamar ka yiri oo khad cagaaran looma kala samaynaye inay ka yimaadaan rabitaanka nin walba asaga aniga wax inta laga yimaado Soomaalinimo inta loo wada fariisto ninka markaasi iyaga dadka deegaanka ee asaliga ee aanan ahayn dadka nin walba danta gaar ah ee meel kastaba uu ka soo baxay uu yimid meesha kaliya dan asaga marka uu dadkaasna in runta loo sheego la yiraahdo culayska ka qaada Kismaayo haddii taasi aynu ka gudubna ugu dambeyntii inuu dhig ku daato maxaa keenay ay kula tahay oo tanaasul ugu imaan waayay khilaafkan tanaasul la'aan waa muddo Soomaaliya 22 sano inay gasho ay sabab u ahayd waad ogtahay magaalada Muqdisho ee caasimada dalka inta ayada ay soo martay ee rafaad iyo mushkilad waxa sabab ay u ahayd isu tanaasulid la'aan maalintan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ee uu gartay inay meeshii shalay taagneed meel ka sii fiican dadkuna ay niyadu khayr ay u sheegaan inuu Ilaahay maartay ku soo dejiyo naxariistiisa ayaa maanta rajada xamari ay ku naaloonayso ay tahay nabadda ay haysato maanta balse Kismaayona kama marnayn ayadana hamigaasi dadkuna waxay qabeen rajo haddii Kismaayona ay xamar oo kale iyadana wadadeedii iyadana ay cagta saarto dalka Soomaaliya inta kale ee dhiman waxaa rajada la qabay ay ahayd inay israaci doonto oo Soomaaliya waxay soo martaba haatan nabadadii soo gaaray ay ka bogsan doonto laakiin haddana haddii laga soo bilaabo haddana koonihii haddana meel kale laga soo laado maaragtay kubaddii isla mashaakilkii mar kale inay qabaa'iladii haddana mar dambe inay soo urursadaan oo sidaasna dadka Soomaaliyeed xataa laftirkooda halkay wax ka dejin lahaayeen qolaba maaragtay inay ayada ay u fuusho tarbuunka ay u sacab garaacdo oo ay tiraahdo hebel baa saxsan kuwa kalena halkaa iyagana ay durbaan ka tumaan maya hebel baa kasii saxsan iyo kuwa kalena ay yidhaahdo maya intoodaba waxaa kasii saxsan hebel taana runtii anaga uma arkayo dadka sidaa isticmaalayo ama kuwa dibadaha jooga ha noqdaan ama kuwa gudaha
kuwa Kismaayo iyo maartay dadka ku nool ayaga dantii maartay wanaagsanayd inay ayaga waxtar ay u leedahay waxa ay ku hadlayaan iyo waxa ay sameynayaan laakiin tanaasulka waa lagu khasbanaanaya laakiin ninkii wax garta ayaa tanaasulaya. waad mahadsantahay Professor wali waxaad naga dhageysanaysaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha maantana waxaa marti noogu ah Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya misna ah siyaasi waa tahay mudane mid kamid ah dhageystayaasha ayaan dib ugu baaqayaa walaal soo dhawow magacaaga ku bilow barnaamijkan oo aynu kaga hadlayno xaaladda iyo dagaalada soo cusboonaaday magaalada Kismaayo waxaad ka weydiin karto Professor Maxamed Cumar Dalxa. magacayga waa Maxamed Aadan Muqdisho jooga waa salaamaya bahda VOA iyo dhageystayaasha gaar ahaan professorkana waa salaamaya labaad waxaan jeclaan lahaa professorka inaan su'aal ka weydiiyo maadaama meesha hadda waxa ka dhacaya aan arkayno ay dawladda ay cabaar ay faraha kula jirtay ay hakin weysay magacu doonada ha la baxo cid dadkii meesha iska qof kamida oo abaabulan ama beel ha ahaado ama jabhad ha ahaade uu duulaan sameeyay oo beelihii kale waxa uu waday diidana ku duulay oo hadda shacabkii meesha uu ku baaba'ayo dawladda mooyaysan xaq u lahayn inay shacabkeeda difaacdo iyadoo kaashanaysa AMISOM. waa mahadsan tahay AMISOM iyo dawladda labadaba iyaga oo runtii waajib ay tahay inay difaacaan sida adiga aad sheegtay haddana meesha kama marna AMISOMtii iyo dawladdiiba labadaba dad siyaabo kala duwan aragti ka qaba oo aanan ku qanacsanayn marmarka qaar talooyinka ka soo baxaya dad baa waxaa laga yaabaa inayaan u cuntamin qaabka dawladda Kenya ciidamada ka jooga ee AMISOM qayb ka noqday siyaabaha ay u howlgalaan ama qaabka ayaga ay u kala qaataan awaamirta waana tii maaragtay ee taagnayd beryo dawladdu ciidankii qalabka sida meesha ayada u joogay wasiirkii gaashaandhigga iyo wasiirkii warfaafinta oo afhayeenkii dawladda ahaa wafdi ayaga ay hogaaminayeen airportka maalmo maartay ay ku xanibnaayeen taana loo arkay in dawladdii meesha aanan iyada awood kale ku maartay qanacsanayn waxa iyada ay u socoto iyo waxa iyada ay doonayso inay meesha markaa iyaga ay arrintaasi ka socotay sidaas oo kalena dhinaca kalena AMISOM raggaasi ka jooga ee dawladda Kenya weliba ciidanka ayaa dhinaca kale ayagana waxay u arkayeen inay iyaga yihiin kuwa ka dambeeya in dawladdii iyo maaragtay wufuudii iyo awaamirtii kasoo fulaysay ilaa iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh ay jireen marka arrin oo intoodaba maaragtay aanan jirin in wax tixgelin ay u hayaan Kismaayo inaanan meeshaba oolin ilaa arrinta markii dambe ay gaarto in maaragtay ajendayaashii gaad shirkii ka dhacay Addis ay ka mid noqoto in dawladda Soomaaliyeed loo madax banaaneeyo inay iyada ay hagto nidaamka dalka maanta hadda weliba si gaar ah jubbooyinka iyadoo loo tilmaamay in looga dambeeyo maadaama iyaga ay yihiin dawladdii sharciga ahayd wixii nidaam waddanka ka dhaqangelayo inay iyada loo baahnaa in iyada marka ugu horeyso ay noqoto midda ku kala saarta nidaam waafaqsan shuruucdeeda isla markaasna ay dawladdaasi ay noqoto midii loogu dambeyn lahaa marka taasi laftirkeeda weli ma ka bisishahay mise kama bisla mase ku qanceen go-aanka igaad iyo talada dawladda ay wadato waxaan filayaa weli wax dhammaystirmay kama imaanin shantii qaybood meeshaasi markii hore nin walba madaxweyne sidii ay dhici jirtay bay haddana dad badan oo Soomaaliyeed oo qaarkood xataa siyaasiyiin leh waxay bilaabeen inay fadiilo kale ay kala shidaan oo dadkii ay u kala saftaan oo midda kale yiraahdaan adiga ku adkayso mowqifkaaga annaga ku garab taagan iyo annaga maartay shafka ku garaacayno meeshay doonta ka buskayso inay baasiin ku sii shubaan dabkii inay halkaasi ay sii holacdo ku haminayo weli marka sidaas waxa diidan in wax maartay dadka isku raacaan dawladdiina ayadana garsoor ka noqoto sidii loo heli lahaa ayaa arrinta waxaa murjiyay dadka meesha iskugu tagay dhegeysto kale ayaa khadka ku jira walaal soo gal barnaamijka magacaaga ku bilow halkaad naga soo wacayso iyo su-aasha ama aaraada la xiriirta xiisada ka taagan magaalada Kismaayo xaluhelideeda kusoo dhawo barnaamijka wicitaanka. Maxamuud Axmed Xasan oo idinka soo wacaya magaalada Laascaanood xarunta gobolka Sool. Waa salaamaya marka hore professorka marka labaadna su'aal baan ka weydiinayaa arrimaha Kismaayo ku saabsan. Professorka waxaan weydiin lahaa dawladda Soomaaliya arrinta Kismaayo ka taagan in muddo cakiran oo iminkana gacan ka hadal isu bedeshay maxay wax ugu qaban laadahay halka dagaalka ka socda dagaal looma baahna dhowr iyo 20 sano dagaal Soomaaliya ku soo jirtay burbur iyo baraka
marka maxaa wax looga qaban la'yahay oo dowladda Soomaaliya oo arrimahan iyadu madaxda ka ahayd inay wadanka nabadayso oo dadka dib u heshiisiin u samayso maxay wax uga qaban laadahay oo u eeganaysaa xabadda Kismaayo ka socota maxaa loo heshiisiin waayay dhinacyada Kismaayo isku haya dowladuna ay u dhexgeli laadahay su'aashaas weydiin lahaa walaal waad mahadsantahay su'aashaasi hore loo weydiiyay ma jirtaa su'aal kale oo jeclaan lahayd inaad weydiiso ama tala soo jeedin waxay noqotaba waxa weydiin lahaa professorka maxaa uga qorshaysan arrinta jubbooyinka dowladda Soomaaliya ma halkaas weydiin lahaa waaya halkuu dhegeystahaasi maxaad uga ambaqaadi kartaa oo nooga sheegi kartaa professor dowladdu waxay diyaarinaysaa qorshe dib u heshiisiin oo ay ka wada qayb galaan dhammaan dadka indigenouska ama dadka si rasmi ahaan deegaankaasi iyaga markii horeba talada inay iyaga ay ka wada go'do loo baahnaa ayagoo aanan xagga iyo xagga maartay loo kala eegin isla markaana dadka kale ee haatan iyagana caqabada ku ah iyagana markaasi faraha ay kala baxaan maxaa yeelay dadka reer Kismaayo isma diidana balse waa la isu diidan yahay professor Maxamed Cumar Dalxa siyaasadii wata halkaasi iyo haadaantaasi ayay ka dhacday maxaad oran lahayd hogaankii dhaqanka aaway maxay ugu guuleysan waayeen hogaamiyaasha dhinaca dhaqanka ee qabaa'ilaadka ee kuwa haatan jooga jubbooyinka iyo kuwa kale Soomaaliyeed baxal u helida arrintan berigii jaahiliyadda ayaa waxaa jiray gabay ee iyaga carabta maartay ay dhihi jireen ma ana illa min Quzaya in rawad Quzaya rawaytu wa in tarshud Quzaya arshud war anigo niman reer Quzaya aan ahayn miyaan ahay haddii reer Quzaya ay baadi noqdaan anna waa la baadiyoobaya haddii reer Quzaya iyaga ay soo hanuunaan aniga waan la hanuunaya waxaad moodaa weli dadka qaarkii ee Soomaalidu in maskaxdooda qabyaaladii ee heerkana dhigtay inaysan weli waxba iska bedelin reerkooda meeshuu jiro iyo diintu haysto ayay doonayaan inay reeraha kale ee Soomaaliyeedna inay ayaga la tagaan marka intuu qof maskaxdiisa weli ay ku jirto qabyaalad iyo caadifad maartay oo reereed Soomaalidu way adag tahay sida isku afgarato maxaa yeelay nin waxaa loo baahan yahay hadduu reerkiisa gardarayna uu yiraahdo reerkaygu sida tan idima bishe ka jooga siyaasigayno meeshaan waxa aad ka wadid kuguma haboonee ka fiirso laakiin hadda waxay timid aniga hadiiba reer hebel ayaga meesha aan laga rabin anigana layma rabo haddii reeraha rabay xumaantooda ay wataan iyo hadday wanaag ay wataanba aniga iyaga unbaan wax u hayo iyaga unbaan maartay alla daba taaganahay u shayda maartay wixii ayaga ay yeelaan baan anigana aan yeelaya marka waxa meesha taalo horta waa Soomaalinimadii baa meesha ka maqan wadaniyadii baa meesha ka maqan waxyaabihii baa haddana la qurxiyay haddii America ay ka dhacayso hal maalin gudahooda oo haayana qolo maartay dad ku taageerayso Boston qolo madaxweyne kale ku taageerayso Minnesota madaxweyne kale qolo ku taageerayso qolana Washington maartay madaxweynihii afraad ku taageerayso qolana maartay state kale oo maartay ama Chicago ku taageerayso adduunka ay ku joogaan ay Mareykankii ee adduunyada dadkii anaga aan filayna inay noo noqdaan muraayad hadday tahay maxaad umaynaysaa odayaashii baadiyaha joogay marka waxa way nasiib daradana haysatay qayb ka tahay marmarka qaar inaan iska damino TV-yada ee dadkeena caadiga ahaa ee iyaga maanta dhulkii ay harariiqayeen in lagu xaliyo arrintooda ay kalifaysaa maxaa yeelay aqoontii baa laftirkeeda waxay noqotay wax si horumarisay qabiilkii qaab farsamaysan in maartay dadkii maskaxda maartay hadda dib la isu geliyo waqti la filayo ma hadda in qabiil dib loogu noqdo waqti laga bixla laakiin qabiilkii baa inta garabaato loo xiray tayna loo xiray jaakana loo labisay ayaa weliba lagu xaragoonaya oo professor Maxamed Cumar Dalxa dad badan baa haatan waxa ay isleeyihiin xalka halku ku jira maxay noqon doontaa waqtiga soo socda iyo maalmaha soo socda xiisada Kismaayo xalka halku tagi doona marka adigu maxay kula tahay wallahi xalka wuxuu ku jiraa alla ka cabsi maartay dad maartay iimaanka ilaahay maartay u wanaajiyay inay maartay ay noqdaan haddii qofka aanan labadaasi laga waayo xaqdarro iyo dulmi iyo maartay indhacadays iyo muruq taabasho iyo qaab aan wanaagsaneyn wax ku doonis ayaa waxay u noqonaysaa wuxuu wax ku raadiyo mana u suurtoobayso wuxuu rag yidhaahdaba rag baa diiday Soomaalida tiraahdaa aniga waxaan qabaa waa inay Soomaalida wax isu quurtaa wax isu ogolaataa Kismaayo dadkii ilaahay asaga dhaxal siiyey ee iyaga nasiibka u yeeshay inay ku noolaadaan sida gobolada kale ee Soomaaliyeed loogu ogol yahay inay wax fiican oo ay raalli iska yihiin ay samaystaan ayagana ha loo daayo inay samaystaan Soomaaliya oo dhan baa annaga dhammaan wada eeganayno khayraadka yaalla waa Soomaaliya oo dhan mid wada deeqa oo laakiin dariiq fiican inaan annaga aan wax kula qaybsano aan ku fakarno laakiin yaysan noqonin meelaha aanan maaragtay ee dadka iska jilicsan ku nool nin walba inuu ku durduriyo
si uu asaga hadda iyo annaga dhulqabsi iyo maaragtay kheyraad maaragtay u tartamid iyo maaragtay istraatiiji kale sida dowladihii waaweynaa ee adduunka maaragtay nin walba meeshuu ka samaysan lahaa saldhig inuu asaga dadka qaarkii inay ku xisaabtamaan nin walba meeshuu koonaha ka jooga soomaaliya inuu kasoo buskiciyo kisimaayo asaga gambar uu soo dhigto dadkii joogayna dhammaan iyaga uu ka dhigo maaragtay dad aanan jirin wax ilaahay raalli ka ahna noqon mayso wax horay dad wada ku fikerayn ee u meel martayna ma aha hadday dadka soomaaliyeed iyaga walaalahooda ah haddii iyaga ay jecel yihiin inay nabad kula noolaadaan kisimaayo qof weliba way ka badan tahay soomaaliya oo dhan ba waxay ku filan tahay kheyraadkeeda gobol weliba oo soomaaliyana maanta sidaasaa ilaahay kheyraadkii uu siiyey ayaa soomaaliya oo dhan ku filan marka maalin walba in laysku haysto deegaan oo dad korkooda lagu diriro ayagoo mar walibana la adeegsanayo siyaasado iyo xeelado haddii loo baadana xataa aan laga maaragtay xishoonayn in shisheeye xataa maaragtay gacansaar lala yeesho waa arrin aada u qaabdaran soomaalidu waxaan leenahay ha ka korto maskaxiyan waxaasi waana inay maaragtay inay yihiin dad kow inay muslimnimadooda ay xaqiijiyaan oo ilaahayna u hoggaansamaan awaamirtiisa ay noqdaan walaalahana soomaalinimane wixii ayaga shalayba maaragtay inay ku kala haadaan sababay haddana yaysan keenin mar kale inay soomaalida dhexdeeda ay ku colowdo maaragtay kismaayo darteeda haddii aan wax yar ka iraahdo halkaasi professor maxamed cumar dalxa dhinacyada siyaasiyiinta soomaaliya ee jooga magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waa siyaasiyiin gobolka kasoo jeeda hoggaankii dhaqanka deegaanka ayaa wada qabaa'ilaadka ayaa dhinac walbaba la taagan marka adigu waxaad ku celcelinaysaa dad deegaankii kasoo jeeda maaha marka sidee loo fasiran karaa hadalkaaga waxaa loo fasiran karaa walaal meeshaasi soomaalidu way istaqaanaa soomaalidu tuulay isu taqaan waxay isu taqaanaa geed bay isu taqaanaa guri bay isu taqaanaa soomaalida inna magaalay degtaa inna miyay degtaa dadka miyiga degana way isyaqaanaan kuwa magaalada ku noolna way isyaqaanaan magaalo iyada nin walba way u furan tahay nin kastaba wuu degi karaa sida maanta muqdishaa la wada degan yahay baydhabaa la wada degan yahay boosaasaa la wada degan yahay hargeysaa la wada degan yahay kisimaayaa la wada degan yahay gobol soomaaliyeed oo qof kastoo soomaaliya ah aanan joogin ma jirto haddana soomaalida way isku cisaysaa qof waliba meesha asaga uu deegaan ahaan oo qofka ilaahay markiisii hore inuu asaga u dhaxal siiyey in looga dambeeyo laakiin hadda weliba waxaan aaminsannahay dadkii rasmiga ahaa ee deegaankaasi ee iyaga la rabay laftirkooda in lagu qadariyo inaanan la siinin wax ictibaar ah keliya indha cadays iyo maruq taabasho iyo madax adayg iyo anaad kaa maaragtay awood badan inta fara badan dad adeegsanayo oona siyaabo farsamaysan dad siyaasiyiin waaweyn oo meelo maaragtay kala duwan ka imaanayo ayaa waxay ku leeyihiin saameyn iyo dawlada markaasi lagu tuhmayo iyaga laftirkooda inay qeyb ay ka yihiin oo ayagana markaas ay soomaalidu ay leeyihiin dawlad hiblaayo waxay qeyb ka tahay dhinacaasay maaragtay ayaa gacansaar la leedahay dhinaca kalena dawlad hiblaayo ayaa iyadana halkaasi iyadana kasoo maaragtay afuufayso waxaasna intaan meel aan iska dhigno annagoonan dawladaha dariskana aan maaragtay eedaynaynin annagoo reer hibilna aanan cid gooni a loo takooraynin soomaalinimada oo rasmiga ah ee waafaqsan kuwada noolaanshaha deegaankaas iyo nidaamka sharciga cidda loo baahan yahay inay iyadu maaragtay nidaamkaasi inay samaysato wax qoran waaye wax lagu gorgortamayo ma aha wax lasoo safrinayana ma aha waxaan jeclaan lahaa wixii soomaaliya ay ku heshiisay ha laga helo halkaasi dadka meesha joogaan ama tabar ha lahaado ama ha tabar darnaado barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo uu marti noogu ahaa professor maxamed cumar dalxa oo ka mida mudanayaasha baarlamanka dowladda soomaaliya kuna saabsanaa xal u helidda xiisada dagaal ee magaalada kismaayo ayaynu intaasi kusoo afmeeraynaa tan iyo kulanti dambe inta aynu toddobaadka soo socdo barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo.